kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa saacadihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxay la soo saxiixdeen saxiixii ugu muhiimsanaa oo ay xagaagan sameeyaan waxaana ay bixiyeen lacagtii lagu jabin karay qandaraaskii uu kula jiray Thomas Partey kooxda Atletico Madrid oo gaaraya 45 milyan oo gini. raacadisaan cajiibka ah ee madowga ah ayaa Arsenal waxay ku asturi doontaa ceebteeda iyo qadkeeda dhexe ee biyadeyska ah waxaana wiilkan uu ku wanaagsan yahay burburinta kubadaha isku dhigista qatarada goolka ku wajahan iyo xitaa dhisidda kubadda oo marka ay suurto gashana wuxuu dhalin karaa goolal taasi oo noqotay waxa Arsenal ku qasbinay lacagtaasi ka bixiyaan oo isaguna 4 sanadood oo heshiis ah uu kooxda kubadda cagta Arsenal u saxiixay. Thomas Partey wuxuu u dhashay waddanka Ghana waxaana uu noqonayaa saxiixii saddexaad oo ay Arsenal samayso xagaagan kadib labada xidig ee ka soo jeeda waddanka Brazil ee kala ah Willian iyo Gabriel Magalhaes oo isagu dhanka difaaca ka ciyaara waxaana xidig ka soo dhaqaaqay kooxda ku ciyaartay Gegada Wanda Metropolitano uu kulankiisa ugu horeeyay safan doona sida la qiyaasayo ciyaartii Arsenal wajihi doonto kooxda Manchester City. Thomas Partey wuxuu xiran doonaa lambarka 18 ee kooxda Gunners waana lambar taariikh kala duwan ku leh dhanka xumaanta iyo dhanka wanaaga marka loo feeriyo xidigii lambarkaas soo xirtay. markii ugu dambeysay waxaa xirnaa difaaca reer Spain Nacho Monreal kaasi oo Arsenal ka tagay xagaagii hore waxaase uga sii horeeyay xidigaha kala Sebastian Scalacci, Michael Silvestre, Pascal Kagan iyo magacyo kale oo laga xusi karo David Haller. lambarka 5 ayuu Atletico Madrid u xiran jiray waxaana Arsenal lambarkaasi hadda u qaata ciyaaryahanka difaaca ah ee ka soo jeeda waddanka Greega kaasi oo lagu magacaabo Socrates Papostopoulos kaasi oo markii hore la filayay inuu Imaaraati isaga tagi doono balse ku sii nagaaday oo iska sii jooga kooxdiisa. ku soo biiridda ciyaaryahan Thomas Partey kooxda Arsenal waxay furaysaa baal cusub oo ku aadan shaxda uu Mikel Arteta ku dagaalami doono. macalinka Isbaanishka ah ee Arsenal hadda hogaamiya ayaa isticmaali kara 2 shaxood oo aad u adag markay kooxdiisu wajahayso kooxaha kale ee horyaalka Ingiriiska ama tartamada kale oo ay Arsenal ka qayb galayso. 2 shaxood oo awood badan ayuu Mikel Arteta ku ciyaari karaa ama 2 siyaabood uu u safi karo kooxdiisa isagoo isticmaalaya Thomas Partey. golhaye Bernard Leno si aan shaki lahayn waxaa iska cad in booskiisa uu sii xafidan doono haddii uu caafimaad qabo. shaxda koowaad waxay noqonaysaa Bernard Leno oo goolka xafidan kara iyadoo saddexda difaac ay noqonayaan David Luiz, Gabriel Magalhaes iyo Tierney. qorshaha afarta dhexe waxay noqon doonaan sida la qiyaasayo Hector Bellerin iyo Maitland Niles oo garbaha ciyaaraya. Niles booskiisa waxaa marmarka qaar ka xoogi kara ciyaaryahan Saka. Thomas Partey iyo Saka shaka kuma jiro in bartamaha ay ciyaari doonaan iyadoo aan xasuusta laga saari karin in Arsenal uu ku sugan yahay xidiga baaskiisu saliideysan yahay kubad abuuraan inaba caadi ahayn ka oo hadda ay u badan tahay inuu booskiisa heli doono Mesut Ozil. baas aabihii wuxuu awoodi doonaa haddii Janis la siiyo in wax badan uu sameeyo isagu waa Mesut Ozil. Pepe iyo Lacazette waxay garabsan doonaan ciyaaryahanka kooxda hogaamiye ee kabtanka ah Pierre-Emerick Aubameyang. Pepe shaki weyn ayaa la gelin karaa iyadoo Willian uu booska ka xoogi karo. shaxda labaad ee Arsenal ay ku ciyaari doonto waa sida soo socota sida sawirka kaaga muuqata waa Bernard Leno oo gool haya ah facyadu waa Gabriel iyo David Luiz, Hector Bellerin iyo Tierney. qadka dhaxasha kama taagna inay mar walba isgarabsan doonaan xidigaha kala Thomas Partey iyo Granit Xhaka. lambarka 10 ayaa farta laga saari doonaa ciyaaryahanka cajiibka ah ee Isbaanishka ah Dani Ceballos kaasi oo ah nooc xidig oo ku wanaagsan isku xirka bartamaha garoonka iyo xerada ganaaxa kooxda la wajahayo. Aubameyang ayaa lambarka 9 laga dhigi karaa iyadoo Saka iyo Willian ay garbaha ciyaari doonaan. labada shax marka loo fiiriyo waa 2 shax oo adag. haddaba daawade haddii aad muuqaalkan daawatay ma isleedahay Thomas Partey kooxda wax badan ayuu ku soo kordhin doonaa? aniga aragtideeda waxay ila tahay in Thomas Partey uu Arsenal tamar badan siin doono uuna dabooli doono ceeb badan oo Arsenal qad ka dhexe kaysatay iyadoo meesha aan laga saareynin sida uu la qabsan karo horyaalka Premier League iyo sida uu ku heli doono shaxda marka ugu horeysa. like sar muuqaalkan una share gari asxaabtaada si aan u soo gudbiyo wax walba ku aadan xidigaha kooxdaada ku cusub.